qiyaamaha, geerida, dhimashada nebiga sala allahu calayhi wasalam, salaadaha, cibaadaadka kale. cawadu ilahi raada subxaana wa tacaala waxaanu ka hadlaynaa doon, markab, bad, tahriib, liibiya, maalta, magafe iyo wixii la mid ah insha allah. bismi illaahi الرaxmaan الraxiim. alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimkaa waxa uu noogu tilmaamay wax walba oo na anfaca adduun iyo aakhiro. wuxuuna nooga digay wax allaala wixii dhibaato iyo mashaakil qofka u ah. taasaa waxay keentay diinteenna islaamku inay noqoto diin saliim ah, inay noqoto diin qiimo badan, inay noqoto diimaha oo dhan mid ka sara marta. qofka dhibkiisa iyo wax allaala waxa ka soo gaaraya naftiisa, maalkiisa, diintiisa, ehelkiisa in darar iyo dhibaato lagu sameeyo way diiday. inaad wax dulmiso ama lagu dulmiyo diinta islaamku ma ogola. maca daalika intaa waxay noqotay waxa ugu qiimaha badan ee qofka muslimkaa uu kula noolaada adduunka. ilaahay asagoo taa tilmaamaya ayuu kitaabkiisa ku yidhi: waanfiquu fii sabiili illaah. ilaahay jidkiisa wax ku baxsada, maskaxdiinna ku bixiya, cilmigiinna ku bixiya, xoolihiinna ku bixiya, awooddiinna ku bixiya. waanfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum. gacmihiinnana ha ku ridina tahluko. waa wax allaala waxa ciribteeda dambe aan la mahdinin. tahluka waxaa loola jeedaa waa wax aan gadaal laga mahdinin oo laga baroorto oo laga ooyo oo dhibaato iyo mashaakil qofka ku abuura. walaa tulquu biaydiikum ila atahluka waaxsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin. ixsaanka iyo wanaaggana sameeya. ilaahay muxsiniinta waa jecel yahay subxaana wa tacaala. walaalayaal, khaasatan dhallinyarada, wiil iyo gabarba waxaan aad iyo aad uga digaynaa mowduuca aan rabno inaan wax ka tilmaanna caawo, kaasoo ah inay naftooda tahluka ku ridaan, inay naftooda halaagaan, inay naftooda mashaakil ku abuuraan. aad iyo aad ha loo noqdo dad iimaan leh oo rabbi ku kalsoon subxaana wa tacaala. ilaahay oo lagu kalsoonaadaa keeni karta qofku inuu aamino rabbi wuxuu siiyo subxaana wa tacaala, inuusan risqi ka raadinin meel dhib naftiisu ka soo gaarayso. ilaahay iimaan wanaagsan oo la rumeeyo ayaa keeni karta qofku inuu ku qanco meesha uu joogo iyo wuxuu rabbi siiyo subxaana wa tacaala. ilaahay oo la rumeeyaa keeni karta qofku inuu rabbi aamino, rabbi subxaana wa tacaalana tala saarto. tahriibku waa shayga dhibaatadii mashaakilka bulshada ku abuuray. tahriibku waa waxa ugu dhibaatada badan ee ummadda mashaakilka u keenay. walaalayaal, waxa dhibaato fara badan nagu haaya mowduuca noocaa ah. qof walba oo arrintaa ku dhaqaaqaa garan kara dhibaatada iyo mashaakilka ay leedahay. wiilkii damacsanaa inuu baxo ee waddammadaa uu tago oo dhulkaa uu maro oo tahriib iyo mashaakil uu sameeyo, waa kaasaa oo dhibaato iyo mashaakil laga soo sheegay. gobol ka mid ahna maydkooda la la'yahay, gobol ka mida uu dugaagu cunay. gabadhii tiri waxaa ayaan daran
naagtii afrika ama gabadhii afrika nikaaxeeda ka dhaca ee badda inta raacday waa taa suudaan iyo liibiya dhexdeeda waraabe iyo libaax ku cunay. in badan baa loo baahan yahay walaalayaal inaan ilaahay talada u dhiibano subxaana wa tacaala. waa in rabbi la aamino, waa in qofka rabbi rumeeyo, waa in dadka muslimiinta ay noqdaan dad ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala. rabbi malihin miya, rabbina kaafiya malihin miya walaalayaal? ilaahay meesha aan joogna nagu arsuqi kara malihin miya? maxaa dhacay iimaan darrada? maxaa dhacay caqiida xumida? maxaa dhacay waxyaabahan dadkii iimaanka lahaa ee islaamnimada sheeganayey waxay maanta ku dhaqaaqayaan walaalayaal? waa waxyaabo aad iyo aad u dhib badan. bulsho nuurkeedu waa dhallinyarada, bulsho iftiinkeedu waa dhallinyarada, xoogga ummad waa dhallinyaro, waddan meeshuu ka hagaaguu ka qiimoobo waa dhallinyaro. war haddii dhallinyaradeennii ay meeshaa aadaan oo ay rabbi rumayn waayaan oo intaa la socdo salaad la'aan ay tahay, oo intaa doonta la saaran yahay haddii wax la cabo la waayo, najaasada kaadida la cabayo, maxaa dhacay dhallinyaro? aaway ilaa subxaana wa tacaala wuxuuna amray, war aaway wixiina loo diray cibaado ahaa. laba wiil kasta oo dhallinyaro sheekaysanaya maxay ku sheekaystaan markay maqaayadaha fadhiyaan? xaggee leen ka furmay? masar buu ka furmay. xaggee leen ka furmay? liibiyuu ka furmay. xaggee leen ka furmay? meeshaasay ka furantay. koox saxaabaa nebiga u timid sala allahu calayhi wasalam. maxay su'aaleen? yaa rasuula allah, hal naraa rabbana, rabbigeen ma arkaynaa maalinta qiyaamaha? isku fiiri labada su'aal walaalayaal, isku fiiriya waxay rasuulka su'aalayaan iyo waxaad dadka weydiinaysaan. rabbigeen ma arkaynaa? shoog bay qabaan, hiloobay qabaan. rabbigayuu hilowsayey subxaana wa tacaala. rabbi inay arkaanay rabaan subxaana wa tacaala. yaa rasuula allah, maalinta qiyaama rabbigeen ma arkaynaa? nebigu wuxuu ku yidhi haa, ilaahay waad arkaysaan. waxaad u arkaysaan kamaa tarawna haada alqamar, saad dayaxaad u arkaysaan oo kale. waa habeen 14aad, 14 buu marayay bisha. waa habeen dayaxu kaamil yahay. isku cidhiirin maysaan aragtida ilaahay. waxaan shooq u qabnaa iyo hilow in nafteena ay halaagsanto. waxaan shooq iyo hilow u qabnaa in beerkeenna la iibsado. waxaan hilow iyo shooq u qabnaa in keliyaheenna la baxsada, sida gaariga loo furfuro, jirhkeenna loo furfuro. laa ilaaha ila allah. waxa noo dhiman maxay yihiin walaalayaal? waxa kale la sugayaa maxay tahay? waxa kale la dhowrayaa maxay yihiin? yaa rasuula allah, rabbigeen ma arkaynaa qiyaamo? haa, waad arkaysaan. waxaad u arkaysaan sida dayaxa oo kale, habeen 14aad asagoo ah oo kale. isku cidhiirin maysaan aragtida ilaah subxaana wa tacaala. nebi muuse ilaahay la ballamay 40 habeen kadib ayaa meel lagula ballamay inuu tago. mar allaala markuu taam yeeshay nebi muuse miiqaadkii ilaahay 30 layla wa atamamnaaha b10, 10na uu buuxiyey oo fatama miiqaatu rabbi uu ku buuxsamay 40 habeen ayaa wuxuu tegey goobtii alla kula ballamay subxaana wa tacaala. mar allaala markuu arkay uu maqlay ilaahay kalaamkiisa muxuu yidhi? rabbi arinii andur ilayk, allow iskay tusinaan ku arkaan rabaa. allou jecel yahay subxaana wa tacaala. tahriibaan jecelnahay, waxaan qiimo lahayn baan jecelnahay, nafteenna inaan halaagnaan jecelnahay. rabbow iskay tusi inaan ku arkaan rabaa. rabbiyow itus, iskay tus buu yidhi. andur ilayk, qaala lan taraanii. muuse may arkaysid buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. muuse muxuu saa u leeyahay? waa hilow, waa jacayl, waa shooquu u qabay ilaahay subxaana wa tacaala. ilaa aan ilaahay jeclaano saan tahriibka u jecelnahay, ilaa aan ilaahay jeclaano saan macaasida u jecelnahay, ilaa aan ilaahay jeclaano saan kufriga iyo waxyaabaha kale u jecelnahay, dhibaatadana saarana laka qaadi maayo. muuse may arkaysid, walaakin andur ila aljabal, buurtaa fiiri buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii, hadday meesheeda ku sugnaato waad i arki doontaa. haddii jabashu aysan isbeddelin adna waad i arki doontaa. nuurkii allah isu fayday, rabbi ayaa isu fayday. falammaa tajallaa rabbuhu liljabal jacalahu dakkaa, buurtii waxay noqotay burbur, waa burburtay.
ciid oo kale noqotay ayadoo dhan. nebi muuse buurtii buu fiirinayaa, nebi muuse buurtii buu u jeedaa. falammaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa, muuse muxuu noqday? fakhara muusa saciqaa, muuse dhulkuu ku dhacay waa nasuucay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. muuse waa fadhiinay, dhulkuu ku dhacay. muuse wuxuu noqday saciq, muuse wuxuu noqday qofaan miir lahayn, muuse wuxuu noqday qof saciq ah, waa suuxay. falammaa afaaq, markuu soo kacay buu yidhi ilaah waan kuu tawba keenay, rabbow waa kuu soo laabtay, rabbiyow waa kuu soo noqday adigaa nasahan oo xumaan ka hufan oo aan mataqaanaa wax nusqaan oo dhanba lahayn. mu'miniinta midka ugu horeeya ahay, yaa muusaa ini istafaytuka cala annaas birisaalaatii wa bikalaamii. muusow dadkan kaala doortay hadalkayga iyo risaaladayda, faqul maa aataytuk wa kun min ashaakiriin. mar allaala markuu raggii la ballamiyey soo baxeen, 70 qofood buu ka xulay in allaala intii qownkiisa ahaa si meesha loo geeyo. mar allaala markii nebi muuse uu soo baxay, waa soo degdegay, dhaqsuu yimid, raggiina waa ka soo tegey. ilaah muxuu yidhi wamaa acjalaka can qawmika yaa muusaa, muusow maxaa kaa soo dedejiyey qowmkaaga, maxaa dhaqso uga timid? wamaa acjalaka can qawmika yaa muusaa qaala hum ulaa'i calaa aharii wacajiltu ilayka rabbi litardaa. muxuu u degdegaa raadayaasha ilaah subxaana wa tacaala? waa sugi waaye, wuu dhararsaday, wuu sugi waaye qoomkii la uu soo raaco, raadi ahaasho ilaahay buu raadinayaa. walaalayaal aad iyo aad aan u dadaalno, aan rabbi ka cabsana subxaana wa tacaala. waxa aan haminayno iyo danta aan leenahay ha noqoto dan ka qiimo badan oo ka weyn in naftaadaad badda ku halaagto. caamir nin la yidhaahdo oo taabici ah, salaada qiyaamka markii uu tukaday oo salaadii uu ka baxay, salaadii subxeed uu tukaday, gacmaha ayuu kor u taagay. wuxuu yidhi ilaahayow waagaa baryey, qof kastoo addoommadaada ka mid ahna waa jarmaadoo waa ka lahay. qof kastoo addoommadaada ka mida ilaah muraad ii dan buu kaa leeyahay, allow dan iyo muraad ii qaluu kaa leeyahay, ilaahayow u gud qof kasta xaajadiisii dantiisa. laakiin caamir waa asaga danta uu leeyahay, xaajada uu leeyahay, baahida uu qabo waa inaad u dembi dhaafta yaa rabbi, wax kaloon u baahanahay ma jiro. ilaahu ii dembi dhaaf, ilaahu dembi dhaaf isii. qof walboo annaga naga mid ah oo meesha fadhiyay inta naga maqan, in yar oo rabbi u naxariistay ma ahee, baahida iyo danta ay qabaan waa in dhulkaa lagu socdo, waa in doon la raaco, waa in meeshaa lagu sii socdo, waa in saxaraha la gudbo, waa in la tagaa meelaha la tago ilaa laga gaaro meelaha aan tilmaamayno inay khayrkii wanaagga ku jiraan. waa qof walboo annaga naga mid ah, ilaa qofka rabbi u naxariistay maahane, ilaa qofkuu rabbi u raxmaday maahane. walaalayaal aan ilaahay ka cabsana subxaana wa tacaala. dadka tahriibayaasha ah ee ku qalweyn inay baxaan, dhibaatooyinka ugu faraha badan oo ay samaynayaan, khaasatan dhallinyarada maxaa ugu horeeya? waxaa ugu horeeya habaar iyo inkaar ay ka kasbadaan waalidka. waa waxa ugu horeeyay tallaabada ugu horaysa, waa tahriib tallaabada ugu horeeyo loo qaado. hooyaa laga dhuuntaa, aabbaa laga dhuumanaya, waxaa la samaynayaa mararka gobol ka mid ah hantidii meel u taalay in la xado, oo ay xadaan gabdhihii, oo ay xadaan dhallinyaradii, oo ay qaataan. xaggee u socdaan? xaggee loo socdaa? meesha loo socda waa xaggee? hooya ma oga, aabba ma oga, wax og ma jiro. halkaasaa waddada laysku daayaa, baddaasaa la dhexgelayaa. war baddu marna waa musiibo, marna ilaahay khayr fara badan buu noo dhex dhigay subxaana wa tacaala. wa min aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa maxaa ka mid ah? aljawaar, waa doomaha socda. wa min aayaatihi aljawaar, dooyaha jawaarka ah ee soconaya ee badda dhex qotoma buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. kal aclaam baad moodaa, in yasha yuskin الriix fayadlalna rawaakida calaa dahri. allah hadduu doono dabeeshuu u xasilinaya, si fiican oo qaab wanaagsan bay u socon. wuxuu alla ka dhigayaa fayadlalna rawaakida calaa dahri. inna fii dalika la aayaat, mid kastoo sabir badan oo shukrin badan bay ugu jirtaa. ow yuubiquhunna bimaa kasabuu, ama alla waa ku halaaga subxaana wa tacaala.
war meeqaa lagu halaagay oo dadka meeshaa ku jira, war meeqaa dhibaato gaartay walaalayaal, war meeqa maalin ayaa inta islaan la soo waca la leeyahay ninkaagii markii ugu dambaysay waxaan u jeednaa isagoo dhintay oo dunta ka dhacaya. asaay baa loo saaray, 10 maalmood kadib baa la soo wacay, waa nool yahay baa la yidhi, waa laga qaaday. bil baa laga maqnaa, anaa soo aasay baa nin yidhi oo yimid, asaay baa loo saaray. 15 maalmood kadib nin kalaa yimid, waa gudbahay markii ugu dambayso faraa laga qaadaya buu yidhi. xaaladdaasaa lagu socdaa walaalayaal. dhibaatadaa maxay tahay? mashaakilka maxaa keenay? maskiintaa marna asaa inta loo saara marna laga kor qaado. miilasha gobolka mid ah intay gabdho la ballamaan yay ka tagaan. maxay uga tegayaan tahriib? maxay u socdaan naftooda inay halaagaan? war qofka muslimka muxuu ka cararayaa? waxaad ka cararaysaa wax lagu magacaabo gaajo haddaad ka cararto waa kaasaayo dadkii gobolkamid doonta dhexdeeda isku cunay. dad baa iscunay oo dadkii ka mid ah, waa haddii gaajo laga cararo. maxaa laga cararayaa? xarig mararka gobol ka mid ah haddaad xarig ka xidhato aad ka cararto waa kaasoo ood magafo u xidhan tahay. haddii aad ka cararto geeri waa kaasoo meel lagugu aasii la faagaan meel lagu ogey. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, koox baa maalin ayagoo deggan waxaa ku dhacay dhibaato iyo cudur ama daacuun, geeri bay ka carareen. cabbaar markay socdeen buu ilaahay yidhi dhinta subxaana wa tacaala, alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluuf, maxay u baxeen xadara almowt, geeri bay ka digtooni qabeen. waxaad ka warantaa buu dhahay ilaah, alam tara ila aladiina kharajuu, way baxeen min diyaarihim wahum uluuf, dhowr kun bay ahaayeen. maxay u baxeen? geeri bay ka cabsanayeen. waxay u baxeen xabadi inay ku dhacday ka cabsanaayeen. maxay u baxeen madfac inuu ku rog bay ka cabsanaayeen. xadara almowt. faqaala lahum allah, faqaala wuxuu ku yidhi ilaahay ayagii muutuu dhinta. hal mar bay daateen buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. uma axyaahum, kadib allah soo nooleeyey subxaana wa tacaala. maxaa la tusayaa awoodda alleh? walaalayaal, qofka muslimkaa waa inuu bartaa wanaagga. war ninkaadii cabuujidka maray oo badbaaday, war nin doon 24 maalmood ama bil kaamila badda ku dhex jiray oo jidhkiisa sida mallayga asagoo noqday alla badbaadiyey, oo mar allaala markuu meesha tegey kiniisad lagu qaabilay, oo mar allaala markuu meesha tegey khasiir iyo rooti la siiyey, oo guri inta la siiye kuu soo sawiray beeyuusa kuu sheegin. meesha aad joogtaa kuu dhaartoo kuu qiimo badan. 5 salaadood baad aadaankooda maqashaa. xayi cala asalaa, xayi cala alfalaax markaad maqashaa timaadaa. dukaankaagaad dib u furataa. xaas haddaad leedahay quraac iyo qadiica shaa u diyaar ah. qiyaamuleyl baad istaagtaa ma istaagaan. rabbi subxaana wa tacaala baad barisaan, wakhtiay ku baryaan malaha. rabbi subxaana wa tacaala baad xusuusataa ma xusuustaan. guri la siiyey oo noocaa inta laguu soo sawiraa laguu soo diray oo lagu yidhi daqayo oo ka soo tag meesha. nin baa dukaankiisa iibiyey, ceer buu qaataa. nin baa hanti uu lahaa ka tegey, safuu ugu jiraa waxyaabahay meelaha kale. nin baa wax allaala wixii hantiya uu lahaa wada bixiyey. xaaladda noocaasa maxay tahay? insaankii aaway, war caqligii diinkii aaway, war daacadii alla aaway. maxaa naga dhigay dad adduunya doon ah? maxaa naga dhigi waaya dad aakhira doon ah? war kunuu min abnaa'i alaakhira walaa takunuu min abnaa'i dunya. war ilmo adduumeed ha noqonna, ilmo aakhira noqda. war meeshaan wax allaala wixii rabbi kuugu talagalay waad helaysaa. ama afrika ha kugu siiyo, ama carab ku hel, ama aasiya yurub tag. ilaaha subxaana wa tacaala qof walba wuxuu u kitaabiyey asagoon helin walaase adduunka ka tegey. fattaquu allah waajmiluu fi alab. war ilaahay ka cabsada dalabka qurxiya. war sida loo raadinayo qurxiya. war sida loo raadinayo qurxiya. rabbi subxaanahu wa tacaala yaysan idinku kelifin risqi idinka soo daaya in macaasi loo galo. waxaan waa imaanayaa maalintii alla kuugu talagaluna imaana. yaynan kugu kelifin daahid yar uu kaa soo daahay ama imtixaan alla ku imtixaamaayo in macaasi lagu raadiyo, in nafta badda lagu halaago, in dhibaatii mashaakil lagu sameeyo. xaaladda noocaasa walaalayaal iska ilaaliya. dhallinyaradii maanta way dareereen. dhallinyaradii maanta way baxeen, dacwo uma socdaan. dhallinyaradii maanta waa dareereen oo way baxeen. alla ka cabsi inay soo siyaadsadaan uma baxaan. maxaa loo baxaa? nolol baan raadinaa. war ilaahay ma laga sheeganin subxaana wa tacaala. war nolosha kale aad raadinaasa maxay tahay? haddii rabbi ku nooleeyey oo ku siiyey xayaato,
war haddii islaamkaa dhiga alle subxaana wa tacaala, war haddii meel islaama aad ku nooshahay, war haddii risqigaagii quud maalmeedkaaga alle ku siiyey, nolosha kale ee la raadinaya maxay tahay? war qaar bay ka taagan tahay meesha joogta alla yaa idin celiya, waad maqasheen baan filaya. qaaray ka taagan tahay alla yaa idin celiya meelaad ka timideen, waad maqasheen baan filaya. qaar bay ka taagan tahay maxaa idinka keenay shaqooyinkiina, waad maqasheen baan filaya. qaar bay ka taagan tahay xataa haddii la celin waayo in ilaahay naftaba ka qaado subxaana wa tacaala, xayaatada ugu xun ay ku jiraan haddii la fiiriyo. waa dhibaato aad iyo aad u weyn walaalayaal. qof walbow aad iyo aad u fikir, war qof walbow rabbi subxaana wa tacaala garo, wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha. nimcada ilaahay haddaad damacdaan inaad tirisaan ma koobi kartaan. laakiin insaanku waa kafur dalum ah, waa kufri badne, waa dulmi badne. rabbi buu dulmiyaa, naftiisuu dulmiyaa, meel walba ayuu dhibaato ka sameeyaa uu dulmiyaa. insaanka saasaa lagu yaqaana. insaanku waa daluum jahuul ah, waa dulmi badna haddana jaahil ah. labadii baan isku darsanay, alla nagu tilmaamay subxaana wa tacaala. dadka dad nadiifoo qiimo badan noqda. war qof walbow naftaada anfac, war bulshada anfac, war ummadaada anfac, war waddankaaga wax u tar, war dadkaaga wax u tar. waalidkii aan soo tilmaannay xaqa ugu horreeye nagu lahaa way habaartamayaan. xaggeed horumar iyo liibaan ku gaaraysaa? lugtaadu waa inuu libaax cunaa, gacantaadu waa inay mtaqaanaa dugaa kala cunaa, dawaco waa inay madax kaa cuntaa. xaaladaha noocaas ah maahee wax kaloo la gaarayaa ma jiro ilaa la soo tabiyey mar allaala markay ay baxaan oo ay tagaan meelaha oo la qabsadee meel lagu xihaa hooyo la soo wacayaa ama aabbaa la soo wacayaa, waa la oynayaa, qofkii baa la garaacayaa, waa la tumayaa, waa la mashaakilaynaya, dhib baa la gaarsiinayaa, waa lagu istaagayaa. xaggeed u socotaa? aaw noloshaad raadinaysay, nolol baan raadina u kuleeya nolol. xaggee u socotaa? nolol baan raadina. nolol meehe wuxuu raadinayaa geeri, nolol meehe wuxuu raadinayaa dhibaato, nolol meehe wuxuu raadinayaa mtaqaanaa mashaakil. hooyo asuu oynaayii aabba intuu soo waco yuu leeyahay saasaa i haysataa, dhibkaasaa i haystaa. yaa fiirin kara haddana? waa dhibaato la dul saaray. war nin noocaasa goormuu liibaanaya? war gabar noocaasa goormay liibaanaysaa? war wiil xaaladiisu saa tahay goormuu horumar iyo khayr gaaraya? hooyaa ooynaysa, aabbaa oynaaya, walaal baa oynaaya. adaa keenay, waxaad rabtaa inaad nolol u soo siyaadiso. iska daa inaad nolol u siyaadiso, aad guri u dhisto, aad wax u samayso, aad meherad iyo dukaan u furtee abbuulkii yaraa iyo cariishkii yaraa bay dib u sii iibinaysaa. maxaa loo iibinayaa? in magafa lagaa furto keliya, wax kale maa, weli meel kale ma gaarin. meeshaasaad taagan tahay. war rabbi aan ka cabsana subxaana wa tacaala. war ilaahay aan u soo rujuucna dhallinyaro. war dhallinyaro xooggiina maala, war dhallinyaro rabbi talada u dhiibta. war salaada subax haddaad meeshaa ku tukato, yaa rabbi yaa rasaaq aad dhahdo, casharka aad qaadato ilaa qoraxdu ka soo baxdo, aad ilaahay jus u akhriso alla dartii, shaqadaada meeshaa aad aaddo, maxaa kaa maqan oo kaa dhiman? maxaa kaa maqan oo nolol ah? rasuulku muxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, man asbaxa mu'minan, qofkii waa bariista asagoo iimaan leh, laa ilaaha ila allah baa qalbigiisa ku jirta, nebi moxamed buu aaminsan yahay, kitaabka qur'aankuu akhrinayaa, diinta alluu ku camalfalayaa, 5 salaadood jamaacuu imaanayaa, iimaan buu ku waabariistay. dadaa dibi caabuda, dadaa sanab caabuda, dadaa xoole caabuda, ma caabudida allaad caabudaa subxaana wa tacaala. man asbaxa mu'minan, tan labaad mucaafan fii jasadihi, jasadkiisa alla u caafiyo, ilaahay caafimaad uu siiyo subxaana wa tacaala. jasadkiisaa caafimaad u qaba, xibin kama xanuunayso, dhibaato kale ma hayso. kii tahriibay waa iimaan darro, jasadkiisa dhibaato iyo rafaad baa gaaray. midka ugu fiican ee ugu wanaagsan, cidyaha asagay ka dhaceen buu maalta gaaraa, cidyaha ka qubtay waa midka ugu fiican. ka kale mas baa qaniinay, bahlaa dhinac ka qaniinay, habeen baa baawuru ka dhacay, asagoo dhanoo wada go'go'a oo wada dhibaataysan yuu maalta ka degaa. meeshaasaa lagu soo dhoweeyaa, waa midka kale. rasuulkuna wuxuu tilmaamayaa jasadkiisa ilaahay caafimaad u siiya subxaana wa tacaala. ta kale rasuulku wuxuu yidhi aaminan fii sirbihi, meesha uu ku nool yahayna uu ku bedqabo, cabsi ma haysto, waxuu ka cabsanaya ma laha. saa darteed buu subaxii ka lahaa, suuqaasuu wuxuu alla ka soo siiya ka helaa, gurigiisuu ku soo laabtaa, waana jiiftaa. aaminan fii sirbihi cindahu quutu yawmi, maalintaa wuxuu cun lahaana waa u yaalaa, berri ma aha, waa maanta.
raashinka maalintaa uu cuni lahaana agtiisay u yaalaan. wuxuu la mid yahay adduunka iyo waxa saaran iyo waxa darafyaalkeeda yaala qof guriga loo soo geliyey, ow kamaa qaala sala allahu calayh wasalam. maxaa kaa maqan? waxbaa raadinaa baad leedahay. xaggee wax ka raadinaysaa? mu'min baad ku waaberiisatay iimaan, ilaahay baa caafimaad ku siiyey, aamin baad ku taasiri dhigaaga. maalintaa cuntadaad cuni lahayd baad haysataa oo guriga kuu yaalaa. adduunka buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam, meeshaad u socoto iyo meeshaad leedahay waa gaara, iyo meeshaad leedahay nolol baan ka raadinaa, waxa yaala inta laguu soo qaadaa guriga laguu dhigay. qof kaa maqan ma jiro, wax kaa maqan ma laha. qofku hadduu intaa aamino, qofku hadduu intaa rumeeyo, qofku hadduu intaa qalbigiisa geliyo, waa dadka ugu qiimaha badan ilaahna subxaana wa tacaala khayrka siiyey. aan sii wadno. mar allaala marka lacag la xado oo hooyo aabba laga qaado, meeshaa lagu dhacee la socdo, mashaakil iyo dhibaato lala kulmo, ragga ayaa u badnaan jira dhallinyarada ah. gabdho tahriiba ayaad arkaysaa maanta. waa tahriib, waa gabar. raggii bay daba socotaa, way cararaysaa, ma socon karto. way ka dheeraynayaan, way ka daba cararaysaa. ilaa mararka gobolkaba wixii laga samaysan karo in laga samaysto naa naga har yaa dhibaatona gaarsiinayne meeshana markaa loogu tago. heerkaasna waa taallaa maanta. heerkaanna markaa waa la marayaa. waxay rabtaa idana nolol inay gaarto. maxaa waaya nolosha ka maqan? iskuul salay dhammaysay, shaqay heli kartaa, nin wanaagsan bay heli kartaa, nin lacag leh baa intuu soo doonto ahludiin ahlu cibaado ah yay leedahay maya, arooskayga maba ka dhacayba afrika wax lagu magacaabo. hadduusan afrika dhicin hadduu ka dhacaya, wuxuu ka dhacayaa libaax calooshiisa, wuxuu ka dhacayaa waraabo calooshiisa. waa dhibaato aad iyo aad u weyn. waa mashaakilka dumarkeena haysta gobol ka mid ah. xaaladaasaa maanta la marayaa. kulli waan la soconaa. waxa aan tilmaamaynay, waxaan ka hadlayno waa shay qof kasta uu la socdo. intibaah iyo baraarujin baan rabnaa. dhallinyarada waxaan rabaa inay aad iyo aad u fakeraan. waxaan rabaa naftooda inay hagaajiyaan, mustaqbalkooda ay toosiyaan, rabbi ay ka xishoodaan, amarka alla ay ku socdaan, iimaanka ay rabbi rumeeyeen ay sheeganayaanna inay ka run sheegaan. waxyaabahan aad iyo aad isaga daaya. war ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala. war wax nolola oo idinka maqan ma jirtee. nolol xumo halkaasay taallaa, nolol daro halkaasay taallaa, diin xumo halkaad u socotaan bay taallaa. war meelaan salaad lahayn, war meelaan aadaan lahayn, war meelaan xalaal lahayn, war meelaan wax lahayn, war meelaan rabbi lagu xusayn, war meel ilaah subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaaggii taacada iyo diintaad u jeeddaa. haddaad meel aadayso meeshaasaa markaa la aadaa. haddaadan ka harayn, war haddaadan iska dhaafayn, maba dhaafi doontaane. war haddaadan iska joojinaynin, war si aan tahluka ahayn oo aan mashaakil lahayn oo buufin la buufiyaan badda lagugu wadaynin oo aan dhibaato kale lagugu xiranayn oon hooyi aabbaadan ka oysiinaynin ku dadaala. taasaa ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa khayr lagu gaara. buushkii iyo cariishkii hooyo ay lahayd, meeshii yaraa ay muufada ku dubaysay, meeshii yaraa ay biilkeeda ay ka dhacsanaysay, tiyaa lagu beecinaya, lagu iibinayaa. horumarka iyo waxa kaa horay aakhira maxay yihiin? waa adduunya beel, waa aakhira beel. adduunkiina badda ku dhimo ama camtaqaanaa dugaag ha ku cuno, aakhiradiina dhibaatii mashaakil ha kuu ahaato. hooyo ayadoo ooynaysana arrintaa ha kuu samayso, dhibaatadeeday leedahay. war mashaakilkiisuu leeyahay. rabbi aad iyo aad ha looga cabsado. haddii meeshaas sama lagu gaaro, ha socod iyo kowa markaa bilaabanaya. intaad xabsi gashay waad gashay, intii lagu xihay waa lagu xihay, intaad badbaadoo lagu soo fakiyey waa lagu soo fakiyey. weli wuxuu hanqaltaagayaa meeshaa mar uun tag. isdhihi maayo xataa war intaan oo dhibaatad martay iska laabo, war intaan mashaakil baad martay oo idaa ka soo ducayso, war intaa oo rafaad ahaad ku socotaaye rabbi inaad u rujuucdo ood rabbi u soo laabato ood ilaahay u tooba keento. meeshaad ka timid dib ugu laabo. qof fikiraya ma jiro. aad iyo aad baa caqli wuxuu u noqday maanta caqli mataqaana nusqaan ah. caqligii caqli xayawaan buu noqday, amase wuu ka sii liitaaba. markaa wixii ka dambeeyaa doon bilaabanaysaa. waxaa bilaabanaya in doon la saaro oo la raaco. waad aragteen dadka tahriibayaasha ah, walow beryaan dambe muhaajiriin lagu magacaabo. waxaad maqlaysaa dooniintaasoo muhaajiriin etoobiyaan iyo saare iyo soomaali. muhaajir maxaa ah? xaggee loo hijroonooya? xaggeese loo socdaa? ilaahay subxaana wa tacaala mar allaala markaan diinkiisa dhinac marnay oo aan ka leexanay, wixii wanaagsanaa aan xumaan u aragnay, wixii xumaanaan wanaag u aragnay, markaasaa dhibaatii mashaakil nagu timid. xaaladdaas aad iyo aad ha looga waantoobo. saasaa loo raseeyaa, saasaa loo saarayaa
qof kastaa mar uun kor bay ka taagan tahay, mar uun gaar, xataa dhihi maayo way buuxsantay ani raaci maayo. wuxuu lacag u dhiibayaa oo wax u bixinayaa inuu ummaddaa halaago, intaan halaagga ku sii socoto tahlukada ku socota inuu sii halaago. cabbaar baa la socdaa, markay doonidu socon weyso ama ay dareemaan naaqoodayaasha iyo kuwa kaxeeyayaasha ah inay halaag iyo dhibaato soo socota maxay sameeyaan? ninka ugu cayle ugu buuran baa la raadinayaa si badda loogu tuuro, ila dadka halaag buu keenaya. saasaa loo fiirfiirinaya ummaddii. kuwaa la qabtaa waa la tuuraa, ku kalaa la qabtaa waa la tuuraa, ku kalaa la qabtaa waa la tuuraa. heerkaas inaan noqono maxaa kelifay? in nafteennu inay nafteennu naf qiimo badan noqon weyso. war naftaan ilaahay subxaana wa tacaala baa khalqaday, ilaahay ammaan ahaan buu noogu dhiibay. inaan dhibaatii mashaakil ka gelina ma wanaagsana. war wixiina loogugu talagalay inaan ku samaynaa nala amray. xaaladdaa waa inuu qofku fiiriyaa. saasaa qofka loo raadinayaa, waa la tuurayaa. islaam uur leh haddii la arko waa la tuuraa ayadana, ila laba qofood ay noqonaysaa, bannaankaa lagu tuurayaa. dadka gobolka mid waxay ka sheekeen waa yaabaysaa, qofaa ku ruux baxaaya, saasuu indhiintee koruu aadaan awa noloshaa raadinaysa. markaad inta ka tegaysa iska joog lagu lahaa sootaale nolol baa raadina, maxay indhaag isku bedelin waaye? maxaa u sakaraaday haddaad nolol raadinaysid? war nolol waxaa la yidhaahdaa nolosha xayaatada ah ee tayibka waa iimaankii camalka saalixa walaalayaal. waa qofka ilaahay rumeeyey camal wanaagsanna ku daray. war qofka imtiqaanaa nolol qiimo badan helay waa qofka inta ilaahay caabuday taacada alle ku dadaalay subxaana wa tacaala. war qofka camal saalixa sameeya, dakari unha kuu doono ha ahaado, iimaanna laga helo, falanuxyiyannahu xayaatan tayiba, kaasaa xayaato fiican la noolaynayaa. doon aad ku dhex socotay, qof laga tuuray, qof ku dhex saxarooday, qof mashaakil ku dhex sameeyey, ku kumatay, kuwaan baddaba xamili karinba, oo mar allaale markaysaa u dhaqdaba tag bilaabaaya. aaba noloshaad ku jirto, aaba noloshaad heshay, aaba noloshaad tilmaamayso. man camila saalixan min dakarin aw unha, wuxuu raba ha noqdo, iimaanna leh buu dhaha ila subxaana wa tacaala. waa noolaynaynaa, xayaato tayib ahaan ku noolaynaynaa. aakhirana camalkuu sameeyey kan u fiican baa lagu abaalmarinaa. waxaan ka dhacsannahay meesha nolosha laga helay meesha kale. meel aan nolol jirin baa nolol ka raadinaa, meel aan nolol lahayn baa nolol ka raadinaa. saa yaanan yeelin. cabbaar bay sii soconaysaa duuniyaddii, waa la sii socdaa. intaa war lagaama helo, intaa welwel bay ummaddu ku haysaa. war inta mashaakilaad isku darsatay fiiri, war inta dhibaateed ummadda gaadhsiisay fiiri, war inta dhibaato ah ee aad ehelkaaga u soo jiiday fiiri, war qaraabo saad u dhibtay fiiri. hooyo iyo aabba maba ula sii jiraan haddana hadday ifka joogaan. murugtaasaa lagugu haystaa. mar allaala markaad tallaabto oo aad ka badbaaddo oo aad ilaahay kaa badbaadiya subxaana wa tacaala, markaa iyo koo waayo haddana weli xayaato maadan helin, weli xayaataad heshay ma jiro. dhallinyarihii halkaa joogay ee ilaahay in yar inta uu siiya maharo yar iyo dukaayar meeshaa ka furtay, sokor iyo saliid cabiraya kiilo iyo 2 kiilo, gabar yaroo ahludiinoo muxajaba ah, kitaabka ilaahay xafiday, xijaabka alla aan ka tegin, rabbiyow meehe aan wax kale afkeeda ka soo bixin, aan ummadda dhibin, aan dhibaakir gaarsiinin, deriska wax tarta, wixii aad keenta wixii uu keeno wax ka mida siisaa. meeshaa ka helay hal qol ama 2 qol meesha intuu ka kiraystay, ilaahay ku casumiyo ku ilaaliya subxaana wa tacaala. owlaad baariyaala ka helay, owlaad ilaahay ka siiyey. waa kaa xayaato fiican yahay, waa kaa nolol fiican yahay, waa kaa qiimo badan yahay, waa kaa sharaf badan yahay. adigaa meesha tegey. mar allaala markaad tagtaa meel lagugu xaraynaa. marka hore xayawaan iyo ari iyo lo oo kale meeshaasaad ku jirtaa. waa ninkii dhammaay sharafta lahaa. kaar yar baa lagu siinayaa, waxaad waxahin baa lagu siiyaa. waxa aad siin jirtay ummadda ma jirto, adaa tuugsanaya. wixii ummadda aad tari jirtay ma taraysid, adaa wax lagu tarayaa. waxaad ummadda u qaban jirtay ma u qaban kartid, adaa lagu tarayaa. gabar meeshaa ka tagtay meeshaa aaday, waxay ka taagan tahay rabbow yaa dib ii celiya, rabbiyow yaa gadaal ii celiya. shaaha suuqa ku iibin jiray qiimo badan bay tiri, shaahaan iibin jiray. shaahay mar xajka aaday, xaj bay ka aadi la'adaa wax meeshay ku haysato. shaaha ay iibiso yaa ilaah intuu u barakeeyey khayr iyo wanaag ka gaartay. ayada imtiqaanaa wiilkeeda intay tigid ka goosteen iyay tageen baydka alle, ay ka soo xajiyeen, ay ka soo laabteen. gabar baa tir warnaa shaahi maad iibisaa weli? meeshaan ku nool haddaad imaan lahaydaa, haddaad saa ahaan lahaydaa, haddaad ahaan lahaydaa sida loo dhahay meeshii bay aaday. waxay ka taagan tahay yaa waylataa laytani, halaagaygiiyo ya iga celiya meesha,
yaa meesha dib iiga celiya beryahan dambe maxaa soo baxay sida baabuurkiina loo iibsado walaalayaal aawa keliyaheeni aawa beerkeeni aawa indhaheeni aawa kaadihaysti aawa waxyaabihii kale waa lagu kala tartamayaa ilmo lama dhaafo gabar lama dhaafo dhallinyaro lama dhaafo ummaddiisaa la yeelay oo xaaladoodu saa ay tahay maxaa mataqaanaa aad u malaynaysaa xaaladooda inay noqonayso khaasatan walaa siimaa soomaali wax ka daba cararaaya wax ka daba oynaaya dawlad ka daba hadlaysa qof u hadlaaya qof u dhaqdhaqaaqay uusan jirin waa dhintay waa laga baxsaday waa laga baxsaday dawladaha kaleba laga yaabo mararka gobol ka mid ah in loo dhaqdhaqaaqo in wax loo sameeyo in la yidhaahdo yaa maqan iyo yaa kale ummaddan iska yaacaysa ee ilaahay mee cid kale aan u maqnayn war caqligiina yeesha ilahay usoo noqdo subxaana wa tacaala war nolol waa nolosha diinta islaamka war tahriib nolol ma aha ummad bay ka ooyisaa waalid bay ka oysiisay daday xoolo amtaqaanaa xayawaan calooshooda gelisay dadaa baddaa ku dhibaatooday dadaa beryahan dambal soo baxo keliyaha iyo wadnihii waxyaabaha kale lagala baxa waa la iibsadaa xataa waxaa la tilmaamayaa mararka gobol ka mid ah qofku hadduu caafimaadkiisu aad iyo aad u fiican yahay wadnaha iyo beerka xataa gorgortan ma gelahayo waa fooqilmiis waa laisku dhiibanayaa saasaa naloo iibsanooya saasay xaaladeennu tahay heerkaasaa maraynaa waxaa cuntaa raadinaysaa intaad waxaad cunta raadinaysaa lagu cunay intaa waxaad cunta aad raadinaysaa adi lagu cuna markii ilaahay aan tala saarana subxaana wa tacaala war rabbi aan u soo rujucno subxaana wa tacaala war khayrka iyo wanaagga ummad ku dadaasha aan noqono adduunkan waxaa naloo keenay cibaadadii haddaan ka leexano oo cibaadadii sida ay tahay aanan u samaynin dhibkaanaa noo dambeeya mashaakilkaanaa noo dambeeya haddaan sii wadno oo aan sii xoojino oo aan sii laba jibaarnana waa nala ku laba jibaarayaa haddaan rabbi u tooba keennanna dembigii dhibaatada waa nala ka dhaafayaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala sida ilaahay tilmaamay in axsantum lianfusikum wain asa'tum falaha haddaad wanaag samaysaan idinkaa iskale haddaad se xumaan samaysaan idinkay dushiina tahay ilaahay muxuu tilmaamay subxaana wa tacaala haddaad towba keentaan ood rabbi u soo noqotaan oo khayrkii wanaaggaad ku socotaan khayr baad leedihiin rabbina waa idin siinayaa wain cudtum cudnaa haddaad noqotaanna waa noqonaynaa haddaad xumaantii iyo tahriibkii iyo dhibkii iyo mashaakilkii salaad la'aantaad ku noqotaan cadaabkiina lagu noqonayaa dhibaatada waa ka sii badanaysaa heerkay maanta markaa gaarsiisan tahay mashaakil badan baa jira walaalayaa aan ku fakarno saan dhibka ummadda uga bixin lahayn aan ku fakarno saan mujtamac wax ugu qaban lahayn aan ku fakarno dadkaa jidka ku dhammaanaya sidii loo badbaadin lahaa aan ku fakarno islaamaha iyo gabdhaha la kufsanaayo sidii loo badbaadin lahaa aan ku fakarno dadkaa iyo hooyooyinkaa jidka ku dhalahaya sidii loo badbaadin lahaa meehe inaan dhibka annaga sii badino aan ku sii siyaadino oo mar walba jornaalka nala ku sawiro tv-ga nala ka daawado oo dhibaatada iyo mashaakilkaa nala ku sameey waa nala ka fiican yahay walaalayaal ilma sabi baad aragteen yar ah wadnaha lagala baxay waa canug yariis ah aaway inta kale ilmiya yaryarka haddii xaaladoodu saa noqdaan marka mashaakil fara badan baa jire ilaahay ha loo soo laabto subxaana wa tacaala ilaahay ha loo soo rujuuco khayrka iyo wanaagga ha la badiyo ducada ilaahay ha la badiyo subxaana wa tacaala war wax walba waxaa looga baxa ilaahay baryihiisa ilaahay haddaan barino oon si wanaagsan u barino ilaahay subxaana wa tacaala waa naga aqbalaya in sha allahu tacaala dhibkaanna ilaahay waa naga bixinayaa waa waxaan gacmaheenna ku kasbanay annagaana iska bixin karnaa waa waxaan gacmaheenna ku kasbanay sababtiina loogaga bixin lahaa keliya aan ka leexanay sababtii asbaabtiina loogaga bixin lahaa haddaan marno ilaahay nama nicin subxaana wa tacaala ilaahay ummad uu fogeeyey ma nihin war ahlu kitaabkii nimankaa yuhuuddaa lagu yidhi walow annahum aamanuu hadday alla rumeeyaan allay ka cabsadaan salaad ay hagaajiyaan zake ay bixiyaan ilaah muxuu ku yidhi innii macakum micigiinan ahay waa goormee lain aqamtum الsalaa waaataytum الzakaa waamantum birusulii wacazartumuuhum waaqradtum اllaha qardan xasana intaa haddaad samaysaan anaa idinla jira buu dhahay subxaana wa tacaala war intaa haddaan samayno annaga ummatu muxamed ah ilahayna lama jira miya subxaana wa tacaala heeryadan iyo dhibkan ma naga qaadi kara miya subxaana wa tacaala laakiin intaad socoto nolol raadinayso war nin taariiba ma tukadaa horta waa su-aal laisweydiin mudane xaggeesu ku tukadaa ninkaadii cabaay ma tukadaa nin badda laga tuuraay ma tukan karaa nin waraaba ka cabsanaya ma tukan karaa nin mas inuu ku soo guuray ka cabsanaya ma tukan karaa lain aqamtum الsalaa waaataytum الzakaa buu ilah leeyahy subxaana wa tacaala marka xaaladaasaa looga baxa dhibaatada iyo mashaakilka waddadiina ma hayno firxad baan u malayn in looga baxay war carar ilahay cadaabkiisa loogama fakado
ilaahi subxaana wa tacaala meel kastoo aad joogtaan iyo meel kastoo lagu sugan yahay yudrikkum ulmowt buu yidhi walow kuntum fii buruujin mushayada xataa haddaad ku sugan tahay dhismo mushaydoo markaa la adkeeyey la xoojiyey la kakaneeyey xaaladdu saasay markaa u jirtaa waalidka ka ducaysta walaalayaal waalidka aad iyo aad ha looga ducaysto waad maqasheen laba wiil oo daraad inta la qabsaday oo inta meel lagu xirtay maxaa lagu furanayaa baa la yidhi nolol bay raadinayeen maxaa lagu furanayaa mid kastaa waxaa la yidhi waa inuu $10,000 keenaa kanna 10 waa mar alaal markii lala gorgortamay mar hore way ka sii badnayd haye hooyaad rabtaa inaad guri u dhistood cadgeyso gurigeed uga baasbaxaysa waxba ha u dhisna gurigaaga joog iidana abuulkeeda ha ku jirto meesha muufada ay ku dubanayso u badbaadi xaaladdaa aan samaynana la kala la'yahay xaaladdaa inaan samaynana la kala la'yahay mashaakil badan waay dukaamadii baa lagu iibinayaa wixii lahayaa lagu iibinaa dahabkii yaraa ay isku qurxinaysaa lagu iibinayaa kadib baa tol la dhexgelayaa yaa tol ee la leeyahay laga soo aroorina qof kasta wuxuu bixin karo maalin walba ummad waa lagu dhex jiraa hebel baa la qabsoo xihan hebel baa nagafa haystaa hebel baa meeshaa lagu xihay hebel baa liibiya ku xihan hebel baa xuduudda lagu haystaa ummaddii saasaa wuxuudii eber looga dhigay adigana ummad ha isdhibin ummaddana ha dhibin adigina mashaakil ha isgeynin ummaddana mashaakil ha gelinin saasaan idin dhihi lahaa dhalinyaro rabbi aad iyo aad ha looga boqo daacada ilaahay ha loo soo laabto mar allaala marka meesha la tago maxaa ka dambeeyo meesha ah waa nolol iyo kow haddana waa nolol xaaladeeda ilaahay ogyahay subxaana wa tacaala intay soo wacaan gabdhaha meesha tegey yaa waxay ku leeyihin waxaanu ka shaqaynaa waa yeelo waa rag duqyaal ah oo duq ah haddaba oo inta meesha la keenay lagu canaaneeyo ilan qof kale u shaqaynayo ma leh adigaa soo taariibo shaqa raadinaysa maa kaale u shaqay baa lagu leeyahay xafaayadda ka fur xafaayaddaad ka furaysaa saxaradaad ka dhaqaysa ilaa nolol baad raadinaysay aawa gabadhii jaamiciyadda ahayd waxaa odaybay waa yeel oo ilaahay aan aqooninoo ee afka waxay u gelgelisaa qansiir khamran waxaa leeyahay wax yar ugu shub ha ka badinin waa loo qiyaasayaa xaaladdaasay ka shaqeeyaan gabdhihii itaaliya imtixaanaa meelaha aaday waa meeshaad u socotiin waa meeshaad rabtiin walaalayaal kii raba inuu saa yeelana ahlan wa sahlan kii aan rabin soomaa xushmad buu ilaahay kuu yeelay war qiimaad leedahay jumca ma tukadaan jumcaha waad aragteen sida masaajidka loo soo camiraayo catarka kaa baxaya qamiiska quruxda uu leeyahay waxa aad wadato safgaraad soo fadhiisanayso suratukaah baad akhrinayso kama gaaraan loobay maqaar ka sii fiiqaan jumcaha marka jumcaha lagu jiro kaasuu ku soo waxa ku leeyahay jumca ma tukado 3 jumca ma tukan maxaan sameeyaa waxaad doonta samee adaa tagay meeshe wax kaloo loogu jawaabo ma laha wax kaloo aan loogu jawaabo male haddaad rabtida lo maqaarka ka fiiqdana waa kaasaa niil baa wuxuu ka soo hadlay imtixaana yaman intuu u tahriibay hore u sii socday sacuudigu rabay inuu sii galo wuxuu yidhi sii shaqayso 3 neef oo geel ah iyo marna buurta saaraa marna ka soo dejiyaa raashinka uu siina waa ceysh waa rooti uu siinayaa markaasuu wuxuu yidhi aabbahay wuxuu lahaa 200 oo halaad ayaa inaan raacan ka soo tegey buu yidhi waa 200 oo geed oo waddankan lagu raacay oo roob imaanay oo afkiisa ku daaqay oo geedaha uu cunay aad yaabayso caanaha ka soo baxaya waad aragtay meeshaan filayaa cooskiisa waa coos abuur ah saasaa loo soga gobolgool buu u go'an yahay ceysh baa la siiyaa mararka gobol ka mid ah kaasuu ka shaqeeyaa muxuu ka soo tegay 200 oo alaadoo aabii leeyahay midkuu doonuu gowraci karaa midkuu doonuu cuni karaa midkuu doonuu caano ka cabi karaa intuu doonuu ka guursan karaa rafaadkaasuu ku jiraa cagiis waa barareen qoraxda meesha taale darteed marka mashaakilkii iyo noloshaa raadinayno iyo nolosha aan leenahay nolol baa naga maqan waa yaabannahay runtii saa darteed dhalinyar ilaahay aada looga cabsado khayrkii wanaagga ha lagu dadaalo rabbi ha loo soo rujuuco meeshaasaa loo socdaa horta xaalku waa sida meesha meel qarsoon ma aha markii horeyba sii rooneedoo beryaan weyba ka sii dartayba shaqla-aan baa jirta qaaraanba la qaabilinba waad maqasheen qaaraa bannaanka jiifjiifa qaaraa bannaanka iska jiifo waxay cunaan iyo wixii cabaan la ka u fiican waa ka hadda idiin tilmaamo khudbada aan tukanin ee maqaarka ka fiiqa looda kaasaa u qiimo badan kaasaa la isdhihi karaa waa uu u qiimo badan yahay maxaa la sameeyey hooyadii guriga u iibisay waxyaabihii u samaysay uu dhahay hooy saasaan ku yeeli caj baan ku geynaya intaan kaa bixina taleefonku ka dansaday ilan maalin kastee wacdo ciisoo dhiib bee le waxna ma haayo waa gar asna waa miskiinka wax ma haysto asaa tiisa la yaaban asaa la wuxuu cuno asaa la wuxuu ku raaxaysto raaxana ma haysto hurdana ma haysto nololna ma haysto wuxuu dadkiisa tarana ma haysto
mashaakilka xaaladdaa jirta aad iyo aad bay u dhib badan yihiin meeshaasaad rabtaan ama gabadhii ay tiri halkaasaa arooskaygu ka dhacaya halkaasay doonaysaa inay carruur ku dhasho gabar baa waxaa la yidhi laba canug bay haysatay wiil iyo gabar wiil iyo gabar bay haysataa hooyadeed oo afrika joogtana biil bay u dirtaa inta badan biilka waxaa laga bixiyaa ciyaalka wax lagu siiyo waay ciyaalka iskuul bay aadaan way soo noqonayaan iskuulkay aadayaan markaasay mar walba waxay leedahay hooy xaggee aad markay dhahaan ayaga lacag u diraaye ayagan $100 u diraaye waa dhibsadeen ciyaalkii shukulaatigoodii iyo dhinacoodii ayaa dhungal laga noqday waxa ayaga ay lahaayeen bunba wax looga diraa meesha loogu geeyaa subaxii dambe intay iskuulka aadeen baa la yidhi ay iskuulkii ka soo noqdeen waxay yimaadeen hooyadooda ooynaysa habartiio intay jikada laabka ku jirto ooynaysay u yimaadeen hooy maxaa kugu dhacay hooy maxaa kugu dhacay hooy see xaalku yahay hooy ma ayeeyaa dhimatay dhahday ayeeyo ayaa dhimatay ayagana waxayba ka taagnaydba ayadan inkaar qabtada mashaakilka badan wixii waxay ka taagan maxay tahay waxay tiri ayeeyaa dhimatay oh good thank you allah thank you waa ayeedoodii dhimatay marka gabadhaanna waxay rabtaa ilmihii in meesha la geeyo ilmo hooyadaadii dhimatay kula murgi waayey kula ooyn waayey ilaahay taagii u yidhi marka waxa kale oo hadda meesha loo aadaayo runtii ma naqaano ilahay ha loo soo laabto subxaana wa tacaala daacada ilaahay ha loo soo rujuuco ha la noqdo ummad ilaahay ku xihan subxaana wa tacaala waad soo marnay horeyna waad u tilmaanteen saxaabada gobol ka mid ah warqadihii ku bixi lahayn inta loo soo diro waddamada gaalada yaa intay jeexjeexaan waxay ku ridi jireen jikamuufada intay jeexjeexaan kitaab ninka lagu magacaabo kacab ibni maalik in badan baad qisadiisa maqasheen in badan baa qisadiisa laydinkaga sheekeeyey heerka marka la maraayey warqadda sponsorka loo soo diraayey heer waxay ahayd muslimiintu la yidhi hala hadlina adoon yaa la hadlin lagu dhahay adoon lagu dhihin qof lala hadli kara ma laha adoon nimco ku nool aad leedahay islaamkan gaajada ah meeshaan dhibka badan meeshaan saan meeshaan dulliga ah meeshaan mataqaanaa waxa ah inta rasuulka sala allahu calayh wasalam jihaad uu u socday 3 ayagoo ay ka hareen oo lagu reebay mataqaanaa ay ka hareen aynan aadin oo intay soo noqdeen amar rasuulka la siiyey 3dood in la gooyo yaan lala hadlin baa la yidhi qof la hadlayo muslim ma jiro masaajidkuu soo gala waa tukana meeshaasuu ku tukanaa masaajidka waa lay gooyo ma jiro amar alla subxaana wa tacaala baa yimid waa loo hoggaansan yahay muxuu og yahay faraj inuu imaan doono muxuu og yahay fa ina maca alcusri yusra muxuu og yahay ilaahay hadduu ku xirnaado ilaahay inuu khayr iyo wanaag siin doono muxuu og yahay ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa hadduu ku socdo inuu ilaahay ka qaadi doono dhibaatadaysa anagu laakiin ma ogin ma naqaano haddii abaar kugu dhacdan waxaad leedahay waa qaylinaysaa haddii dhibaato ku asiibto waad qaylin haddii kalena adoo shaqo haysaad ba cararaysaa dadka hadda tilmaanay oo kale asagoo xaaladdaa ku maraya muxuu yidhi anoo magaalada maraaya yaa waxaan arkay nin beeraley ah oo shaam ka yimid oo طacaam iyo raashin raba inuu ku gado magaalada madiina wuxuu leeyahay man yadulnii kacab ibni maalik war yaa itusaaya kacab ibni maalik oo yidhi dhalinyaro idinkoo kale ah kacab ibni maalik yaa itusaaya dadku meel hadli karaan waxay guda galeen yushiiruuna inay farta igu soo fiiqaan waa ka fartaa laigu soo taagtaagaya waa ii yimid wuxuu ii dhiibay warqad yaa soo diray boqor baa soo diray boqor idinka hadda baddaad isku daadisaanba ninkan boqor gaala warqad u soo diray responsul u soo diray maxaa ku qoran waa akhriyey amaa bacd waxaana soo gaartay saaxiibkaaga maxamed inuu ku nacay waa lagu gooyey islaamku waa ku nacay dullii dhibaatii waxaad ku dhex jirtaa war ilaahay kuma yelin daar hawaane ka soo tagay annaga noo imow noasik waa ku xidhiirinaynaa guriga ku dejinaynaa waxbaan ku siinaynaa waxbaa saa lagu yeelaa macnuhu waa sida maanta taala saas aan ku yeelnay ka soo tag islaamkaa dhibkii mashaakilka badan saas intaanu akhriyay buu yidhi wallaahi haadihi aydan min albalaa waa imtixaan kale hadda imtixaan i haysta haddana gaalkaa raaca dhibkeeday leedahay waa qabtay warqadii waa jeexjeexay fatayamamtu biha tanuur jika muufadan ula qastay buu dhahay meesha muufada lagu dubo waa ku riday warqad lagu soo siiye beri aad ku dhoofrata yaa gubi kara waa idin ka mida yaa inta qabta ku ridi kara tinaar ma jirto kii waayey waa kaa badda isku ridaaya kii kale alla u saqirna waa kaa baxaya xataa haddii la dhaho 3 ber ma tukanaysa ayuu leeyahay ma tukanaaye
saasaa lagu baxaa. ninkan waa qabtay buu dhahay, jikamuufadan ku riday waana gubay, saasaan u socday. allah aayada ku soo dejiyey, ilaa haddaan akhnaa aayadaha ilahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala. sharafta, qiimaha, wanaagga, ciziga, sharafta ilahay u yeelay subxaana wa tacaala. waa la is-imtixaamaya. war imtixaan baa jira, imtixaan waa lagama maarmaan. kii imtixaanay kaan imtixaaninba waa la socdaa maanta, tii imtixaaneed iyo taan imtixaaninba way socotaa maanta. marka saas looma baahna. waxaa loo baahanya ilaahay in la aamino, waxaa loo baahanya ilaahay in la rumeeyo, waxaa loo baahanya ilaahay inaan ictiqaadino. waa inaan ogaanaa luqmadda aan haysano ee afkeenna aan u wadno, inaan kaga kalsooni badnaano midda ilahay gacantiisa ku jirta subxaana wa tacaala. muufo gacantaada ku jirtaa oo intaad maraq ku soo qaadatay afka aad u waddo, waa inaad ogaato inaadan ku kalsoonayn taa. waa inaad ku kalsoonaataa midda ilaahay gacantiisa ku jirta subxaana wa tacaala. ilaa heerkaa aan gaarno, ilaa ilaahay fiqo aan ku qabno meesha aan gaarnana horumari wanaag la gaari maayo. ilaahay agtiisana cizi horumarka gaari mayno. dhallin yaro tahriibku waa kaasaa xaaladiisa, arrintiisu waa saa. waa kaadi cabitaan, waa waddada lagaa tuuro, waa beerkoo lagaa baxsado, waa kelidoo lagaa goosto, waa masoo ku qaniina, waa dhibaato aad la kulanto, waa adoon taqaanaa baaba'ay oo mashaakiloobay inaad tagto meeshii aad rabtay. tahriib horta xaalkiisa waa kaasaa. kii kale soo ma aha. ilaahay ku kalsoono subxaana wa tacaala. ilaahay habeenkii uu ku qalqahayey, yaax kasta lagu qoray. waxaad heleed waa lagu kitaabeeyey, waxaad cunleed waa lagu kitaabeeyey. ilaahay subxaana wa tacaala sharaf iyo qiima uu kuu yeelay. war bani aadam baa lagaa dhiga, waa lagu karaameeyey. karaamada iska qaadin. walaqad karamnaa bani aadam وxmlnاهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير. wax badan oo rabbi khalqa lagaa fadilay, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. karaamadii ilaahna siiyey yaa iska qaadaynaa maanta, karaama daraa dooranaynaa. karaamadii allana siiyaan rabnaa inaan iska rafacno, karaama daraan raadinaynaa. walaqad karamnaa bani aadam, xaggee lagugu xambaaray? وxamalnaahum في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. xalaal baa lagugu arsuqay, xalaal baa lagugu arsuqay. nin kula socdoo saaxiibka inaad hawaysato inaad cunto ayaa tahriibku keenaa. in ilaahay subxaana wa tacaala amarka iyo wuxuu ku faray markaad ka leexatay, kaadidiisaa laga yaabaa inaad cabto. waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan. aaway karaamadii ilahayna siiye subxaana wa tacaala. wax badan oo makhluuqa ilaahay uu khalqay ayuu kaa fadilay, kaa kor yeelay, kaa rafacay, kaa darajo sareeyey. marka xaaladdaa ha la sameeyo. qof walba oo muslim ah, khaasatan dhallinyaro, waxaan idin dhihi lahaa meesha waa meel noocaas oo kale ah. saacaddan wixii laga bilaabo, intii hooyo aaba wax ka qaadatayna u celiya. in allaala inta qalbigooda ku jirta inay baxaanna iska jooga. war in allaala inta hore u sii baxday sii waaniya. war intaad ka dabategi kartaan ood badbaadin kartaan badbaadiya. qofkii hal naf badbaadiya oo sabab u noqda badbaadkeeda wuxuu la mid yahay kaannama axya annaas jamiica, nin dadkao dhan badbaadiyey. hal qof naf dilkeeda qofkii sabab u noqda fakaannamaa qatala annaasa jamiica, nin dadka la mid yahay buu dhahay subxaana wa tacaala. markaa leeda orod sii baxan wax mays waa kaa daba imaan doonaa. orod saa yeel, jidkaasaa la maraa, inta ka sii bax. haddii aad meeshaa garta saa u leexo, haddii aad maqasho magefo wax la dhaho saa uga leexo, inta saa uga sii jiirey oo aad sii socoto qofkaasaa ku dhinto. ninkii qof dila fakaannamaa qatala annaasa jamiican. marka saa darteed alla isbadbaadiyo. in allaal intaan khayrkii wanaagga isu kaalmaysan karno aan isu kaalmaysano. waxaan cunno ilaahay nooma weynin. rabbi subxaana wa tacaala waana arsuqayaa. ilaahay nama weydiista risqi, ee wuxuu naga rabaa ama uu naga codsaday ama uuna faray ama uu noo abuuray waxay tahay cibaado, inaan cibaado la nimaado. ilahay saasuu tilmaamaya, wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun. jinni insi cibaada loo abuuray. maa uriidu minhum min risq wamaa uriidu an yuطcimuun. inay risqi isiiyaan iyo inay iquudiyaan labadaba kama raba buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. wain allaha huwa arazaaq du lquwati اlmatiin. ilaahay waa razaaq, waa arsuq badane, asagaa dadka arsuqa, awoodda sare asaa iska leh. ilaahay asagaa matiina subxaana wa tacaala. saa darteed dhulalka kayrka badan, meesha wanaagsan, meesha cibaadada lagu samayn karo, meesha ilaahay diintiisa laga maqlaayo, meesha aadaanka dhawaaqiisu ka maqlayso, meeshaa laazima walaalayaal. meeshaa ku sugnaada. waayo qofka daalimkee naftiisa dulmiyey, ilaahay muxuu yidhi markay naftu malaa'igtu ka qaadayso, aladiina tatawaffaahum almalaa'ika ظaalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum. maxay leeyihin? kunaa mustadcafiina fi lard. dhulkana laku daciifsaday, salaaddaan tukan weyne, aadaanka waa maqli weyne, waana loo diiday,
intaana laga bixiyey saanaa nala yeelay amaraa nala ku soo rogay lacagaa laydinka goynaa baa nala yidhi waxaan nahay mustadcafiina fi lard maxaa loogu jawaabayaa alam taku ardullaahi waasica dhulka ilah waasic mahayn miya fatuhaajiruu fiiha maxaad ugu haajiri weyseen maxaad u aadi weyseen intuu ka baxay oo mar allaala marka allahu akbar dhaho uu xiri karo dukaankiisa xagguu tegey waa ku soo wacaya wuxuu leeyahay shaqan ku jiray salaadaa lay diiday maxaa sameeya mararka gobol ka mida baaka maku tukan karaa uu leeyahay ninka meeshka markuu soo galana shaqadii ma iska wadan karaa markuu baxo allah akbar dhaha marka iska fiiriya markuu soo gala shaqa ma ka soo baxa tuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannam hooyadkoodu waa jahannam u dha ilahi subxaana wa tacaala marka yaanan kala dooran adduun iyo aakhiro aad iyo aadna ilaahay aan ugu soo noqono uma taacada ilaahay ku dadaashana aan ahaano intaan saa samaynayno ilahay micigeenu ahaanaya qofka muslimka waa inuu kala gartaa adduun iyo aakhiro war adduunkan ibtilaaba naloo keenayba inaan baahano in nala imtixaamo inaan xanuunsano inaan jirano in nala dhibo in la rafaadiyo in dhibna la marsiiyo in imtixaanka lagugu adkeeyo si darajo fiican aad u hesho meeshaan yaa yidhi waa daar mataqaanaa meeshaan waa daar sijni ah daartan waxay daar u tahay qofaan daar lahayn war janno waxay u tahay qofka kaafirka ah muslimka waa xabsigiisa waa xabsi aad markaa ku jirto saa darteed cuquubada iyo dhibaatada iyo mashaakilka maantana haystaa ee qofka ugu imtixaankii ibtilaha badan aakhira marka la geeyey rasuulku muxuu yidhi hal mar baa la tiimbinayaa jannada waa ninkii ugu dhibka badnaa waa ugu baahi badnaa waa ugu faqri badnaa waa ugu jiro badnaa waa ugu cudur badnaa saas inta loo tiimbiyaa laga soo bixinaa addoonkeyga wax dhibaata maku soo maraa la leeyahay wuxuu leeyahay laa waballa warabbi ilaahay rab cizadaadan ku dhaartaye weligay wax dhibaata ma arkin baahi wax walba maba yaqaanba maxaa hilmaansiiyey waa sibqa yar oo la geliyey war wax waxaas ku hilmaansiinaayo maa naftaada u halaagaysaa xataa haddii ay dhacdaba inaad baahi dhib ku jirto maba lagu jiree ilahayaa laga eed sheeganay qofka ugu nimcada iyo wanaagga iyo raaxada iyo tamatuca badnaa laakiin ahaa qof kaafir ah ama rabbi amarkiisa diiday inta aakhiro la keena waxaa la tiimbinayaa naarta hal mar inta la geliya laga soo bixinaa markaasaa leeyahay addoonkeygiio wax nimco ah wax raaxo ah oo ku soo maray ma jiraa wuxuu ku dhaaranaa inuusan daqiiqad xataa nimco iyo wanaag arkin hal daqiiqad xataa inaysan soo marin nimca maba isoo marin buu leeya ilaahayo meeshaasaa laysku wadaa qofka nimcada maanta ka doorta inuu aado kadibna diinta ilaahay ka doorta subxaana wa tacaala salaadaha aan aad ugu dadaalno dhallinyaray salaada aad ha loogu dadaalo walaa siimaa salaada subax dhibaato badan baa naga haysata salaada subax mashaakil badanaa naga haystaa calaamad sifa iyo munaafiqnimo calaamadeeda haddaad rabto inaad iska ogaato salaada subax la fiiriyaa rasuulku in badan buu ummadda ku guubaabiyey war 2 rakacadood oo subaxa ka hor aad tukato ayaa ka khayr badan adduunka iyo waxa kor saaran waxaan aad raadinayso u taariibayso ma rabtaa in guriga lagugu keeno 2 rakacadood tuka subax ka hor khayrun min addunya wamaa fiiha adduunka iyo waxa kor saaran way ka khayr badan tahayba doolarkeedii dahabkeedii iyo dumarkeeda iyo dhalaalkeedii iyo kulli 2 rakaca ka khayr badan buu yidhi waa la mid tahay maa way ka khayr badan yihiin bal laazimba 2 rakacadood salaada subax aad ha loogu dadaalo bustaha la iska tuuro gabdhaha la hoos jeefaa laga soo tagay xaasaska waxyaabo fara badan hala sameeyo nafta ha la xakameeyo rasuulka sal allahu calayh wasalam caaisho saa u jiiftaa yuu damcay inuu qiyaam u istaago markuu damcay inuu saa u kacay saa u qabatay tiri yaa rasuula allah la jirkaagaan jeclahay la joogistaadaan jeclahay dacnii yaa caaisha iddaa buu yidhi aan rabbigay caabuday subxaana wa tacaala caaisha iddaa saa aan rabbigay u hor istaaga subxaana wa tacaala waa ka soo kacaa ilaahay buu hor istaagaya subxaana wa tacaala waa caaisho waa dumarka ilaahay subxaana wa tacaala khalqi kuwa ugu qiimaha badan tu qiyaano kula ag jiifta lacag saaka laga yaaba inay jeebkaadii kala baxday ayuutay ku gashay laga yaabo in dhibaatii mashaakil ay kugu hayso laga yaabo murunkii dhibaatada siday kugu hayso laga yaabo naagaha meesha laga sheegee saaxiriinta inay kugu tagto waa markay kugu dareento inaad gabar la hadlayso yaad uga tegaysaa ilaahay dartii salaadii subxaana wa tacaala dhinac baa la yska dhigaa waa laga soo tagaa war waa la soo kacaa beydka allaa la yimaadaa war nuur taamay leeyihiin dadka mugdiga ku soo socda ilaahay subxaana wa tacaala salaada subax qofku uu ku xafidaa salaada subax waxaa loo baahnaa hadda masaajidka alxamdulilah waaba buuxaaye in maqaayadaha hortooda lagu sii tukado ilahay idinkii taa aan samayno war aan soo kacno
war rabbi aan u nimaado war ilaahay subxaana wa tacaala aan hor istaagno war khayrkii wanaagga aan badino war ilaahay aan u tooba keenno subxaana wa tacaala assalaa dardaara nebi buu ahaa rasuulku markuu dhimanayay assalaa asoo dhaaya ayuu naga tegey tahriib asoo dhaaya nagama tegin sala allahu alayh wasalam salaa ma rabnaan dhahnay tahriib baan ku bedelnay xaaladdan ma ficna xaaladdaa ma wanaagsana xaaladdaa ilaahayaa laga magan galaa ilaahayaa loo soo rujuucaa daacada ilaahayaa la badiyaa khayrkii wanaaggaa lagu socdaa dhallinyaro wiilal iyo gabdho waxaan leeyahay ilaahay u soo rujuuca odayaal dhihi maayo ilaa ma tahriibnaba waxaa wax badan tahriibo meeshaa aadaa waa gabdhaha da'da yar ee kor saaran iyo kuwaa yaryarkee meesha fadhiya wax idinka horeeya ma jiro khayrka waddankiinu idinkugu imaanaa qof kasta meesha uu joogo ayaguna allaha badbaadiyey intii baxday inaan u ducayno may habaari mayno in allaala inta mashaakil iyo dhibaato haysatana ilaahay ha ka bixiya subxaana wa tacaala saasaan leenahe wax badan ilaahay ha loo soo rujuuco khayrka ha lagu dadaalo cilmiga ha la barto wakhti aan ku tahriibno maba haysanaba waxaana wakhtiga ummadda waaba ku yaryahayba wakti lagu cibaadaysta iyo wakti ilaahay loo dhowaado iyo wakti cilmi lagu bartiyo wakti la shaqaysto suuqa la tago intaas dhadan sugaysee goormee jidkaan socodkiisa gelaysaa goormee jidkaan aaminaysaa ninaa waxaa la la'yahay 7 sano maalintuu baxay la hadda la la'yahay waa 7 sano kaamil ah riq ma laha hadalkiisa ma laha meeluu jooga lama oga yaa tahluka ku riday waanfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmiina tahlukaa ku ridina dhibaatii mashaakil ha samaynina wax badan rabbi ha loo soo rujuuco khayrkii taacada ilaahayna aad iyo aad ha loogu dadaalo markaan raaraadinay oo aan isdhahnay tahriib iyo rashaakilkaas iyo dhibkaas iyo rafaadkaa ma jiraa wax ka dhib badan ma jiraa mar allaala markii xaaladdaa la fiirfiiriyey gabar baa laga sheekeeyey ama islaam baa la yidhi 3 cunug ama 2 cunug wadatay doombay ka raacday baa la yidhi meesha berbera waxay u socotay yeman mar allaala markay gaartay ama intaysan gaarin baa la tuuraa dadka ilmaheedii ayadiiba la tuuriyey mar allaala markii saa loo wada tuuray ayaa hal cunug horta weyba weysayba way soo qaaday kii kale bannaankay keentay oo waxay saartay barajabalkii meesha ku yiilay say dadku gobol ka mida tilmaameen markay meesha saartay yay u soo noqotay kii kale inay raadiso isagoo meyd ah bay heshay ayadii waa tacbaan waa rafaadsan tahay waa mashaakil iyo dhibaato way soo baxday way soo qaaday si ay kii kale ugu timaado kii kaley u timid meeshii bay ugu timid jabalkii korkiisa asagana meyd buu noqday oo markaa wuu dhintay saasay dadku gobol ka mida yidhaahdeen su-aal baa la weydiiyey tahriibkan iyo dhibaatadan iyo mashaakilkan iyo ilmaha saa kaaga dhintay wax kaaga daran ma jiraa habeenkii soo bari lay dhahay yaa iga daran bay marka masiirkaa ka daran baa la yidhi laakiin wax ka jira markaa ma lehe ilaahay subxaana wa tacaala ha loo soo laabto daacada ilaahayna ha lagu dadaalo khayrka iyo ilaahay diintiisa ha lagu socdo qof walbow ilaahay aamin ilaahay talada u dhiibo ilaahay tala saaro suuqa ka shaqaysta war gabdhaha meesha joogee muxajabaadka guursada war guryo meesha ka kiraysta war khayrkii wanaagga ku dadaala war ummadda wax anfaca war ummadda daqli wanaag u sameeya zakada bixiya salaadii beydka alla soo camira dariska hagaajiya dadka xumaan ha gaarsiinina qofkii dhibaataysan aragtaan wax tara ilaahay subxaana wa tacaala u tuuga intaasoo howl aana sugaysaa waana sharaf iyo qiimo cizi wanaag baana lagu gaarayaa ilaah xaq waxaan ka baryaa inuu xaqna waafajiyo daacada iyo diinta ilaahay ha noogu sugo subxaana wa tacaala ilaahay tahriibka xaaladda noocaas ahna ilaahay subxaana wa tacaala aad iyo aad ha nooga bixiyo waxaa digniin mudan baa la yidhi in aad iyo aad loogu digo meel walba hadda waxaa jooga dad wax tahriibiya dhallinyarada dad baa u fududeeya inay tahriibaan waayo qof baaba ogeynba lacagtii buu haystaa meeluu marana ma yaqaano xafiis baa meeshaa ka furan magaaladan xaafaddan aan ku noolnahay xafiis baa ka furan baa laga yaabaa rag baa fadhiya soo maaha raggaan waxaan dhihi lahaa hadday imaqlayn ama hala gaarsiiya ilaahay ka cabsada war dhallinyarada wacyigeliya war dhallinyarada naftooda ha halaagina war dhallinyarada ilaahay taqwadiisa xusuusiya war inay shaqaystaan mutaqaanaa bada war inay guursadaan ay wax dhalaan bada war ayagoo dhallinyaro ah oo badda ay ku dhammaadeen waxay ka tegin waa mashaakilkeeda kuwaana waxaan leeyahay ilaahay ha ka cabsadaano khayrkii wanaaggan ha ku dadaalaana in sha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacala aclam waxaa jira dhallinyaro maqan ama jecel inay baxaan waalidkoodana ka maqan waalidkuna ay oynayaan in badanna ay duco codsanayaan ilahay waxaan oga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ilahay usoo hanuuniyo
ilaahay dhallinyarada ha ka celiyo waalidiintoodan ilaahay ha u soo hanuuniyo subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaaggana allah wada waafajiyo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin wixii su-aalo ah oo la soo qoray waxaan ka dhigan doonaa muxaadarada soo socota haddii ilah yidhaahdo amase fursad kale haddaanu helno insha allah waktiga oo ciriiri ah waxaan leenahay dadka waraaqaha soo gudbiya raalli ahaada insha allahu tacaala